marka inta waxaan tegaynaa marka Verticillium leaf wilt oo kamid ah cudurradii asna Verticillium leaf wilt ama symptomskiisa waxa kamid ah waxaan ka hadlaynaa symptomskiisa waxaan ka hadlaynaa causeskiisa waxaan ka hadlaynaa managementkiisa symptomskiisa maxaa kamid ah low leaves ku dhaca undeflowed appearance leaves ayuu ka soo muuqdaa tissue between the veins wuxuu kala raacaa caleenta veinskeeda kan wuxuu uga qatarsan yahay wuxuu raacaa veinska ama wuxuu ku sameynayaa inay de cuntadii samayso ayuu wuxuu ku sameynayaa si aan biyihii u soo raacin because markii sunlight-ka uu ku dhaco caleentan cunto ma samey karto ayadoon u imaanin biyihii sidoo kale ayadoon u imaanin waa inay isla heshaa biyihii sunlight-kii iyo carbon-kii waa inay isla heshaa intaas markay isla hesho ay waxay samey kartaa caleenta marka haddii caleentu ay soo gaarin biyihii cunto lama samey karo sidaa daraaddeed geedka meeshaas ayuu ku dhimanayaa marka veineska waxay isu bedelayaan yellow waa lagu dhahaa yellow then brown haddana ka bacdi waxay isu bedelayaan in the infected leaves caleemaha uu dhibkaas ku dhacay marka waxay sameynayaan wilt ama inay laabmaan oo sameeyaan geedkan inuu biyo la'aan ku dhacdo kale ayuu ku jira because meeshan calaamadahan waxa shaabahad ka imaanaysa markii geedka biyo la'aan ku dhacdo iyo markuu Verticillium wiltigu ku dhaco isku sii u laalaatada marka waxay u baahan tahay in la kala saaro oo biyo siiso geedkan si aad u ogaato in cudurka waxaan calaamad biyo ay tahay iyo inay ay tahay Verticillium wilt marka waxaad u baahan tahay cudurkan inaad kala saar ku samayso deedna marka dry out caleentii way qallalaysaa markay wiltinkii samayso oo laalaadsato veinskeedii dhintaan deed waxay sameynaysaa way qallalaysaa deedna way dhimanaysaa marka geedkan haddaad caleentii ka dhimatay ma ka sugaysid inaad wax ka gurato stem of the plant may become blackened geedka stemkiisa wuxuu noqonaa mid madow and close to be in soil line wuxuu noqonaa mid qaybta carrada u dhow ayaa waxay noqonaysaa mid madow cross section of the stem severally blocked vascular system waa kaasa waxaad arkaysaa vascular systemkii inuu blocking garoobay deedna waxa waaye geedkaas wax dambe oo nolola oo ka sugaysa ma laha oo qambaroorsamaya deedna uu dhimanaya waa kana isagoo ay ka muuqato leaf wiltkiis waa kaasa cycle-ka uu marayo ilaa uu ka dhinto waa kaasa halkan waxaa arkaysaa isagoo wilting sameeyey oo caleemihiisii ay laalaadsanayaan deedna waxaa arkay isagoo madoobaaday deedna waxaa arkay isagoo stemkiisiiba uu dhintay oo maca salaama geedkaas yahay deed marka waxa waa problemka ugu weyn oo in laga hortago u baahan tahay maxaa sabab gareeya soil borne disease sabab gareeya ama waxyaabahan dhulka ku jiro ayaa sabab gareeya plant through roots asoo raacaya invading have the vascular systems asoo vascular system and pathogen can spread to in uninfested field through the contained irrigated water and movement of infested soils mar wuxuu ka imaan karaa carrada marna wuxuu ka imaan karaa biyaha meesha ay soo mareen oo ka soo raaci kara pathogenka labadaasba uu ku imaan karaa marka labadaas xaalo ayaa koos garayso intuu ka soo gala wuxuu ka soo galaa rootko deedna wuxuu raacayaa vascular systemka ama geedkan systemkiisa uu cuntada ku qaato ayuu raacayaa waa phylumkii iyo xylumkii managementiga plant high quality in high quality seed when abuurata disease free avoid the planting sunflower in the field in now to have the infested with the Verticillium in precisely waxaad ka ilaalinaysaa marka geed dhul oo horay loogu arkay bahalkan waa iska ilaalinaysaa ama hataa iska ilaalinay hataa waxaad sameynaysaa seed waxaad sameynaysaa resistant waana keensataa haddaad ku ogtahay meeshan haddaad adoo meeshan ku og aad haddana seedka aad isticmaalaysaa oo noqonin seed oo resistant waxa waaye waa qalad aad gelayso and where the disease known as to be problematic waa dhulka uu seedka inuu problem ka yahay la og yahay waa inaad u isticmaashaa baashaas waa inaad waxyaabihii ka hortagayo dhan isticmaashaa deedna waxa waaye aad si fiican isaga ilaalisaa
qaybta sagaalaad marka intaas ayaan ku ekeynaynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا بيرات TV si aad uga bogato barashada cilmiga beeraha.